ضعفiga iimaanka waxaa daweeya dadkoo la xasuusiyo waxa aakhiro dambeeya waxa janno iyo naaray ka warramayso ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada wuu ka warramo naarna wuu ka warramo qur-aanka way ku filayd in la yidhaahdo war naar baa jirta iska ilaaliya laakiin lama odhanine waxa la yidhi naartaa gelaysaa waa laga dhabeelaa waa lay dhabeelaa wahum fiihaa laa yasmacuun baa la yidhi nebigu xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay ahluhaa cumyun wa bukmun wa summun buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa dul dhagiya indhaa iyo meel walbala naar baa laga warramay laakiin keligeed lagama warramine waxaa la yidhi waar wejiga idinka leefaysa wejigaa idin madoobaanaya kaannamaa ukhshiyat wujuuhum qiطcan min alleyl talfaxu wujuuhahum annaar waina jahannama lamuxiiطaة biاlkaafiriin lahum min jahannama mihaadun wamin fawqiha gawaash laysa lahum طacaam wamin fawqihim gawaash laysa lahum طacaamun ila min dariic laa yusminu walaa yugni min juuc إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما وقطعت أمعاء فقطع أمعاؤهم إلهي سبحانه وتعالى وحاصرا محالوغا والرمية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب إلهي سبحانه وتعالى انتو النار كورمي وحا لغو عنيو وحا لغو عبيو هوغا لغشانيو ميشا لدقيو سيدا اللي يسدو اللينيو وحا لغو قايلينيو وحا لغو السبكريو وحا لعبيو وحا لعنيو وحا لو تفسيلي وحويا لغو عبسي قليو janno ilaahay markuu ka warramayna waa jannuun lama odhan ee waxa la sheegay waxa nimco ku jira webiyada dareeraya ee khamro leh ee sharaab leh ee malab leh ee caana leh waxa la sheegay xuuralcaynta joogta waxa la sheegay xuuralcaynta iyo sifaheeda xataa ilaahay naasiheedu ka warramo qiyaas rabbu samaawaati walardi markuu xuuralcaynta sifaynayay kawaacib buu ku tilmaamay curub buu ku tilmaamay ilaahay wuxuu ka warramay dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo siday yihiin qurxdoodu ka warramay xataa ilaahay wuxuu ka warramay waxaan naqaa'isa dumar adduunka markay joogaan ay leeyihiin inaynay lahayn dhiiggoodaa laga warramay inaan dhiig iyo mid dhalmo iyo mid dhalitaan iyo waxba toona inaanu ka iman baa laga warramay mar walba inay diyaariyeen baa ilaahay ka warramay maxaa loo sifaynaya maxaa sida tan loogu balballaadhiyey waxa loogu balballaadhiyey waxa weeyaan in wax layna xasuusiyo ولذلك أيها الإخوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركض المامي لمرى مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها وور لير حصوصنا نبينا عليه الصلاة والسلام أدونك مركو تشوغي أو مكتشوغي ee la dhibayey ee nafta la isugu keenay ee ay noqotay inuu baxo ee ay u yimaadeen ansaari ee ay heshiiska la galeen heshiiskay la galeen maxay ahaayeen wuxuu nabigu yidhi iyadoo carab oo dhammi raadacaynayso meeluu galow la'yay bay waxay yidhaahdeen waa ku difaacaynaa naf iyo maal iyo nafiisba waa kugu bixinaynaa carruurtayada iyo reerkayaga iyo waxaanu ka ilaalino saanu kuwa u ilaalina baanu kuu ilaalinaynaa ee maxaanu leenahay bay yidhaahdeen maxaanu leenahay dowladnimadaa helaysaan aniga dabadaybaa madax noqonaysaan waa dhergaysaan waa badhaadhobaysaa baabkaa nebigu kama warramin muxuu ku yidhi walakum aljanna buu yidhi walakum aljanna آل ياسر ولا عذاب يبو صامر qoyska reer yaasir oo islaantii la torture garaynayo torture-kii ku dhimatay sidii loo garaacaya naftu ka bood oodagii sidii loo garaacaya naftu ka bood
oo Camaar oo inan yari markuu adkaysan kari waayey ayuu wax ku hadlayo dabeetana nabiga u yimo isagoo yoole Ilaahay rasuulkiisiyo markii garaaciga tira batay baa waxay sheegayaan inay hadday kugu soo noqdaan iska dheebuu nabigu yiri intay sidaan arku yahay kuwaasaa loo cadaabaya markuu soo maro buu lahaa sabran fa inna mawcidakum aljanna janna qabaa'ilkii u yimay yidhi waa kuu gargaaraynaaye adiga dabada madaxnimada waxba ku leenay baa la yidhi arrinku annaga ma nagu soo wareegaya wuxuu ku yidhi ilaahay baa arrinka iskale iska taga innagu waxaynu isugu nimaadno dadku inta badani waa maxaan helayaa shaqo urur siyaasad waxa la dooro waxa la isugu yimaadaba qofkii ka dhaxarki waaye wuxuu helayaa waar meesha waxba lagu hayo dadka la xijiraya buu oranaya waa la daalinaya war waxa la helayaa waa janno ee janno ma u shaqaysanaysa qofka muslimka ah waxa lagu shaqo galiyaa waa janno hadduu madax yahay hadduu siyaasad yahay hadduu miskiin yahay hadduu meel la xajooyo hadduu taajir yahay waa janno wuxuu u shaqeeyaa waxa uu lagu shaqo galiyaa waa cadaab laga cabsiyo inuu naar ka cabsado oo nabi maxamed leeyay inni nadiirun lakum bayna yaday waxaan idinka digayaa maxay cadaab shadiida uu leeyahay